waxay ahayd runtii wax aan la qarin karayn dareenka bulshadu waxaan la qarin karayn waxay ahayd waxaan la iska indhatari karayn waxay ahayd wax muujinaya dadka reer Somaliland dabadiyo gudo inay muujiyaan waxay qabaan iyo waxay aamisan yihiin ka aamisan yihiin dalkooda siday u jecel yihiin siday u kalsoon yihiin siday u garab taagan yihiin xukuumadooda iyo dawladooda u garab taagan yihiin inay tahay qaranku wax wada leeyahay qadiyada Somaliland aanay ahayn wax qof iyo ashqaas iyo group iyo cid kooban toona ku kooban ee wax dalku wada ilaashanayo wada leeyahay aad iyo aadna ugu bogaadinay wasiirka madaxtooyada Somaliland oo telefishinka qaranku wax ka weydiiyay aragtida xukuumadda Somaliland ee ku aadan siyaasiyiinta u dhashay Somaliland ee hore u aaminsanaa siyaasadda Soomaali weyn haatana u muuqda kuwa bedelay siyaasadaasi ayaa waxa uu yiri أحمد إسماعيل يو أنت كلا الصومالي وين عم سند با فكرة كانوا عسى عم سند با وحنا وركيني فكرة قلدان تاعي وكاسور كذا وحيب بالشدق وعنستي وحيب بالشدق وعنستي واحد هيد somaliland ما ها واحد يقول عامسي أشخاص يعني أفكار تولا دقار كانوا وكفر قلمي لكيسي قد يد somaliland وواحد قرن كانوا وذقاتي وذليه هي قف كستو قرن كمدينة وينو تحقليه marka inay tixgeliyaan bay hore u tixgeliyaan bay ahayd hadii kii u soo noqda ka noqda fikradiisina ku kastaba ha ahaadee xukuumadda Somaliland way soo dhaweynaysaa markasta iyo waqti kasta way soo dhaweynaysaa dambiga iyo ka dhaafistiisa qofka dambi galay ee dambi qaras dumisa galay ka dhaafistiisa iyo cafiskiisa waa arrin madaxweynuhu xuquuq u leeyahay laakiinse ka siyaasad ahaan qadiyada Somaliland ka hor imaadkeedu waa qalad qof kasta oo galay cid kasta oo gasha waa qalad qofkii ka soo noqda waxa weeye qaladka ka soo noqda u soo noqda dadkiisa iyo dalkiisu wuxuu mudan yahay la soo dhaweeyo dambigu uu galay ku qaadistiisa iyo ka afiskiisuna waa arrin u taala madaxweynaha iyo wixii hadii ku qaadistiisa lagu qaadanayna hay'adaha sharciga u taala